markii lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa waxa ay dabaaldeg bilaabeen shacabka ku dhaqan degmada Saylac oo iyagu u dabaaldegayo tan iyo intii lagu dhawaaqay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi aydan sawirkan maada trigan soo sharaxay waxa fikirka soo sameeyay Salaaman Abaadir Shirwac oo fikirkaas kale dhammaan dadweynaha reer Saylac waxaan ku hambalyeeyaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Abdulrahmaan Abdullaahi Ismaaciil Saylici ana ku mid ah dhalinyarada gobolka Salel aad baan caawa u damaashaadayna aad baan u faraxsanahay